kani waa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxa maalinkii ay taariikhdu ahayd 27 bishii May sanada 2020 uu bilaabay safarka ugu magac daray safarkii nabadda ee uu ku mariyay dhammaan deegaanada degmooyinka iyo sidoo kale magaalooyinka ay ka kooban yihiin dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha ayaa safarkiisii ugu horeeyay waxa uu ugu soo ambabaxay kuna soo gaaray magaalada xarunta baarlamaanka oo ah dowlad goboleedka Galmudug ee Cadaado halkaasi oo si maxaba iyo kalgacayl ay ugu soo dhaweeyeen shacabkii degmadaasi Baradhaxmo kadib ayaa isku jilba jabsi shacabka iyo dowladooda waxa magaalada Cadaado ee xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug ka furmay kala warqaadashada dadweynaha iyo sidoo kale madaxweynahooda oo halkaas u yimid ogaanshaha iyo ka warqaadashada waxyaabaha ay ugu horeeyeen coronavirus oo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ka wareysanayay shacabka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa isla markiiba asagoo ka jawaabaya baahiyaha degdega ah ee ka jira degmada Cadaado waxa uu dalbay diyaaradda oo isla maalinkiiba ka soo kicitintay magaalada madaxda dalka ee Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya si la mid ahna waxa uu madaxweynaha degmada Cadaado ka daafuray xarunta karantiilka xanuunka COVID-19 wasiirada xildhibaanada dowladda federaalka xildhibaanada dowlad goboleedka dhammaan ka soo qaybgalay dhaqaatiirta dhammaantiin inta ka soo qayb gashay shaqadan wax ka qabatay waxaan ku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan maanta halkan ka furnay qayb runtii aad iyo aad muhiim u ah muddo koobana laga shaqeeyey oo ah qaybtii lagula tacaali lahaa ama wax looga qaban lahaa dadka uu soo ritay cudurkan COVID-19 runtii waad sad arkaysaan si degdegaha gurmad loogu yimid dhinacyo badan waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay gurmadkaas gacan ka geysatay dowladda federaalka Soomaaliya dhammaan hay'adaha kala duwan ee Galmudug community-ga iyo jaaliyadaha reer Galmudug oo ka soo qayb qaatay meel kasta ay joogaan dhammaan waa mahad celinaynaa sidoo kale dhaqaatiirtii iyo howlwadeenadii sida degdega ah goobtan uga qayb qaatay iyadoo inta waxaan ognahay goobo kale in laga doorbiday oo tan degdeg lagu diyaariyey ayagana waa runtii u mahad celinaynaa waxaan leenahay inta xanuunkaasi haya COVID-19 ilaahay caafimaad taam ha siiyo inta caafimaad qabtana ilaahay ma soo gaarsiiyo gudaantaasaan leenahay waxaana kuma filla inta la helay iyo inta hadda la hayo baahidii oo dhammaystiran ma aha waxaase la yimid meel fiican oo laga soo gurman karo guud ahaan isbitaallada iyo goobaha caafimaadka Galmudug oo dhan baan u rabnaa haddii la yidhaahdo in sidii hore loogu diyaargaroobay si ka sarraysa loo diyaargaroobo madaxweynaha ayaa safarkiisii uu ku soo gaaray degmada Cadaado waxa uu ku daafuray golaha deegaanka ee degmada Cadaado waxa uu shacabka uga digay in ay soo ristaag ku sameeyaan shaqooyinka ay dowlad goboleedka Galmudug ka wado magaalada Cadaado farsamada marti sharafta bulshada qaybaheeda kala duwan saxaafadda ciidamada dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadan daafurka golaha deegaanka magaalada degmada Cadaado dhammaantiin waa salaamantiin waxaan leeyahay galab wanaagsan salaan kadib waxaan mahad celinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay soo qaban qaabisay soo abaabushay munaasabadan qiimaha badan ugu fadhisa reer Galmudug oo ay ugu horeyso wasaaradda arrimaha gudaha wasiirku hogaaminayo guddigii farsamada loo saaray la socoshada degmada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ka soo qayb qaatay soo diyaarinta iyo soo gaarsiinta halkan in la sameeyo ama loo soo diyaar garoobay golihii deegaanka degmada Cadaado dhammaantii waa idin mahad celinayaa qaybaha oo dhan intaa kadib waxaan leenahay hala dedejiyo hana la sameeyo sidii loogu talagalay iyadoo la raacayo habraacii iyo nidaamkii loo dejiyey oo loo qorsheeyey maamul dhisidda guud ahaan reer Galmudug iyadoo aad loo dhowrayo lagana fogaanayo wax kasta oo dib u dhigi kara ama ragaadin kara maamul samaynta lana dhiirigelinayo oo la garab istaagayo
si walba oo ay ku fududaan karto maamul samaynta maxaa yeelay maamul samayntu waxay wadataa faa'iidooyinkeeda waxay wadataa horumarkeeda degmada Cadaado oo aan galabtay daahfuraynana ma ahan iyada waxaan daahfuraynaa oo kaliya waxaan daahfuraynaa dhammaan degmooyinka Galmudug sida horeba loo sheegay waxay nasiib u yeelatay Cadaado maadaama ay hore u lahayd golo deegaan oo si sax ah loo soo doortay waqtigiina ka dhamaaday kii labaadna hadda la dooranayo waxay mar labaad nasiib u heshay inaan isku soo aaday daahfurka samaynta golayaasha deegaanka degmooyinka Galmudug ka kooban tahay reer Cadaado waxaan leeyahay nasiibkiina ilaashada sidoo yahay uga soo baxa dhismaha golihii labaad ee deegaankana si hufan waafaqsan shuruucda iyo nidaamka iyo habraaca ha u dhismo insha Allah degmooyinka kale dhammaantood shaqadu ay ka socoto loo diyaar garoobayna sidaan oo kale ha sameeyeen hana gaarsiiyeen inuu guulaysto nidaamka samaynta maamulada golayaasha deegaanka golayaasha deegaanku horumarkooda ay leeyihiin isgarabtaag bay leeyihiin jidadkoo la dhiso maamulada oo hela garab nidaamka oo hela nidaam la garab istaaga noqda hufnaantiisa ayaa lagu helayaa gargaarka iyo insha Allah taala waxyaabaha ay mudan yihiin oo horumarinta degmooyinku haddii ay noqdaan ay dhacdo degmo ku guul dareysata dhismaha maamul samaynta degmooyinka waxay ka haraysaa wax badan oo horumar ah sidaa darteed ha laga fogaado ha laga dheeraado wax kasta oo dib dhigi kara hawsha iyada ah taas sidaasaan dardaaranka ugu adkeenaynaa runtii ku celinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu safarkiisii ku sii maray deegaanka Galinsoor isagoo oo ku sii wajahan degmada Gaalkacyo waxa uu shacabka ugu mahadceliyay sida ay halkaas ugu soo dhaweeyeen waxa uu ugu baaqay in ay dowladooda garab islaagaan isla mar ahaantaana la fidin doono gogasha nabadda lagana fidin doono degmada Galinsoor rasuulillah golaha wasiirada gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka janamada xildhibaanada labada gole dhammaan mas'uuliyiinta aan intaan sheegay siyaasiyiinta salaadiinta odayaasha dhaqanka dhalinyarada gabdhaha sharafta badan dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadan waxaan ku salaamaysaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal waxaan kaga mahadcelinaynaa soo dhoweynta diiran walaalnimada sharafta dowladnimadu ay ka muuqato ayaan si in badan kaga mahadcelinaynaa waxaan idinka raali garanaynaa inaan soo daahnay muddo la taagnaa waxaan soo ogahay inaad u leedihiin dulqaad iyo sabar iyo dowladnimo jacayl iyo sidaad u rabtaan wadaagga taasaan runtii aan ogahay waxaan leenahay waa laydinku yaqaanay waana runtii idinka muuqataa intaas kadib degmada Galinsoor sida magacaba ka muuqata magacaba laga fahamsan yahay waxay leedahay waxay dad badan uga duwan tahay oo Soomaaliyeed Galinsoor meel sooriyeynta iyo soo dhaweynta iyo sharafta ku fiican sidoo kale deegaankan waa deegaan dad taariikh leh oo Soomaaliya taariikh ku soo jeedaan oo dowladnimada iyo horumarka iyo dalka iyo difaaciisa iyo diinta iyo difaaceeda lagu yaqaano runtii muddo haddii dhibaato la soo maray taariikhdaas iyo wanaaggaas reer Galinsoor lagu yaqaanay wax iskama bedelin waa sideedii intaas kadib walaalayaal mudanayaal iyo mudanayoon waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo magaaladan inay noqoto magaalo saldhig u noqota dib u heshiisiinta Galmudug haddii ilaahay yidhaahdo
meelaha wax ka jiraan oo dhibaatooyinku ka jireen waan ogahay dadka oo dhan dhinacyada oo dhan nabadda iyo wanaagay u heelan yihiin waase taabagelinaynaa oo gobashii iyo saldhiggii baan ka dhigaynaa Gallisoor hadii la yidhaahdo ciidamadii iyo amnigii nabadda lagu hirgeli lahaa lagu ilaalin lahaa lagu dhowri lahaana diyaarintoodii iyo isku dubaridkoodii iyo meelmarintoodii baan gacanta ku haynaa hadii la yidhaahdo degmada Gallisoor reer Gallisoorna tiir dhexaad baa u tihiin waana hubaa inaad dhinac walba aad dadka reer Galmudug ugu horeysaan hadii la yidhaahdo waan iswareysanaynaa wixii degmadan horumar ay u baahan tahay oo adeegyada bulshada ah oo baahiya oo ka jirana si gaara ayaan u xusaynaa hadii la yidhaahdo si nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta mar haddaan dhiri saldhig bay u tahay wixii ka dhimana loogu daro adeegyadii bulshada loo dhamaystiro albaab kasta oo u garaacaynaa Gallisoor il gaara ku eegna insha Allah safarkay wuxuu ahaa safar iswaraysi wada tashi dib u heshiisiin kala warqaadasho waa isu joognaa muddaan joogaynaa waan iswaraysanaynaa qaybna waa isu arkaynaa intaasaan sii horumarinaya inta kalena fadhiyada iyo gobasha iyo gooni baan isu leenahay insha allahu tacaala waana mahadsantihiin in badan baan idiin mahadcelinayaa reer Gallisoor gaar ahaan waxaan rabaa inaan xuso gabdhaha qiimaha badan oo reer Gallisoor oo runtii taariikhda iyo wadaniyadda iyo taariikhda ka muuqatay walaalnimada dheeriga aad iyo aad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha ayaa mar kaleeto waxa uu bilaabay safarkiisii nabadda oo markii xigtay oo uu ku soo gaaray magaalada Gaalkacyo aragtida taageerayaal fara badan oo uu leeyahay mudanaha ayaa waxa ay ahayd in mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu yahay waayeel isku wadi kara dowlad goboleedka Galmudug oo ay taasi daliil u tahay safarkii uu ku soo gaaray magaalada Gaalkacyo uu kula wareegay in ka badan 340 askari hubkoodii iyo sidoo kale gaadiidkoodii oo ahaa kuwo u diyaarsan hab qabiil soo ogolaaday in naftooda iyo sidoo kale maalkoodaba ay u horaan in ay soo afjaraan argagixisada isla mar ahaantaana ay halkaasi kaga leexdaan habkii qabiil ama maleeshiyanimadii ay ugu diyaarsanaayeen degmada Gaalkacyo wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sheegay in Galmudugta cusub ay ka midaysan tahay siyaasad iyo dhaqaale isla mar ahaantaana loo baahan yahay in ay ka midaysnaatahay bulshada waxa uu afka ku ballaariyay in xarunta ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ay noqon doonto indho qaris madaxweyne soo dhawow halkan waa dugsiga tababarka indho qaris waxa halkan jooga ciidamadaas tiradooda lagu sheegay 320 iyo meeqa way 342 nin qaar kale dhuusamareeb ay jiraan qaar kalena ay dib uga soo biiri doonaan oo baabuurtii soo fiksi garaynayaan laakiin waxa noo suurtowday labadii isbuuc oo la soo dhaafay saraakiisha meeshaan fadhida hore fadhida nin aanan markaan u yaraano 3 jeer is arkin waa yarya kadib waxaan ka mahadcelinaynaa inaad u soo hoggaansanteen tixgeliseen awaamiirtii iyo amaradii ka soo baxay dowladda Galmudug ku timaadeen xerada tababarka indho qaris aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin mas-uuliyad idin saaran tahay garateen ku mahadsantihiin inaad garateen intaas kadib sida wasiirka amnigu u xusay Galmudugta cusub waa Galmudug siyaasad ka midaysan dhaqaale ka midaysan bulsho ka midaysan sida waxa kaliya ee u dhiman ay yihiin midaynta ciidamada reer Galmudug jooga taas maanta bilow ka yihiin saldhigeedii koobaad tihiin haddeeda gaarkana waa leedahay hirgelinteeda taabagelinteeda ilaalinteeda waxaa halbowle u ah matiir dhexaad u ah ciidamada reer Galmudug daraawiishta ay maanta bilow ka tihiin iyo booliiska la dhisi doono noocyada tababarka
waxaa laga yaabaa in si guud tababar haddii loo yidhaahdo uu iska leeyahay sawir guud oo muuqaal tababarka waxaan rabnaa inay ciidanku u tababartaan jir ahaan u tababartaan oo ay tababarkii iyo taktiigii ciidanka leeyihin inay u tababartaan maskaxaan oo ay duruus iyo dishibiliin iyo nidaamkii ciidamada qaataan 3 inay u tababartaan qalbi ahaan u tababartaan haddii ay jiraan ciidamada qaybo ka mid ahoo xagga cibaadada iyo alla kacabsiga iyo xoogaa si fiican gacanta loogu hayn si buuxda gacantooda loogu qabto oo ay ciidamadana noqdaan ciidamo dhowrsan lagu kalsoonaa karo aan laga arag wax dayacaad ah dhinac walba waajibaadka saaran dowladda galmudug waxaa saaran inay ciidamada dar yeesho hubkooda noloshooda mushaaraadkooda xuquuqdooda ay bixiso madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu sidoo kaleeto madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxa uu kala kulmay magaalada gaalkacyo isagoona u fidiyey gogasha mideynta soomaaliya isla mar ahaantaana sheegay in galmudugta cusub ay diyaar u tahay in ay mideyso soomaali oo idil axmed cabdikaariye qorqor oo ka shaqaynaya isku soo duminta iyo sidoo kaleeto isu soo dhaweynta shacabka deegaanada galmudug ayaa waxa uu mar kaleeto soo gaaray degmada Dhabad halkaasi oo uu uga warbixiyay baahiyaha aasaasiga ah ee ka jira madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid safarkani ku weelinayay madaxweynaha maanta muujiyay soo dhaweyn taariikhi ah oo runaantii laga filayay degmadan marka xigta madaxweyne ku soo dhawow degmada Dhabad waa degmo qadiimi ah ka taariikh weyn degmooyin badan oo Soomaaliya ku yaala xaqiiqdii laakiin degmadan waxaa la haray colaado waxaa la haray horumar la'aan dawladihii waddanka ka soo jirayna waxba kamaysan qaban madaxweyne degmadan waxay ka sugaysaa horumar waxay ka sugaysaa inaad mataqaanaa cadaalad iyo waxa ay mudan tahay aad marsiiso ilaahay hadduu yiraahdo shacabku waa ku diyaar oo ujeedaa soo dhaweynta tabasho yar baa jirta tabashadana kolley odayaasha laga wada hadlayaa laakiin degmadan dawladnimay diyaar u tahay ku soo dhawow madaxweyne waa madaxweynihii ugu ximriga yaraa amaba ugu dawladnimada yaraa isla mar ahaantaana ugu safarka dheeraa oo ogaanaya baahiyaha ay qabaan shacabkiisu shacabka Dhabadeed ayaa waxa uu ugu hambalyeeyay soo dhaweynta ay u sameeyeen isla markaana waxa uu sheegay in degmada Dhabad ay dawladoodii ugu timid in ay la tashato isla mar ahaantaana dadka degan degmada Dhabad ayaa waxa uu sheegay in gogasha nabadda la dhigay degmada Galinsoor laguna soo qanciyay deegaanada iyo sidoo kale qabiilada kale ee halkaasi ku nool wadataal wax wada leh ayaa waxa uu ku tilmaamay walaalaha dega Dhabad iyo sidoo kale Galinsoor الرحمن الرحيم dhammaan madaxda kala duwan oo horeeya madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha degmada iyo maamulka dhammaan degmada shacab weynaha degmada Dhabad qaybahooda kala duwan salaadiinta odayaasha dhaqanka culumada diinka dhalinyarada gabdhaha dhammaan qaybahooda kala duwan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi reer degmada Dhabad waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida qiimaha badan walaalnimada iyo sharafka badan oo aad noo soo dhowayseen waan ognahay aad iyo aad baan kaga cududaaranaynaa wakhti dheer in nala sugayey oon soo daahnay hadda safarka iyo dhulka lagu socdo iyo masaafada isu jira la yaqaano waa naloo cududaaraya raali baana laka ahaanayaa runtii waxaan reer degmada Dhabad kala kulannay soo dhowayn aad iyo aad xasuus nagu reebi doontaa intaas kadib waa idiin nimid safarkii nabadda iyo xoogaalnimada iyo wadatashigaan idinkugu nimid waa ku faraxsannahay inaan degmada Dhabad safarkaas ku nimaadno waxaan rabnaa fariimo kala gedisanaan idinka haynaa oo aad iyo aad dhammaantood uga turjumaya xaqiiqada iyo sida saxda ah
reer degmada dhabbad waxaan wadnaa nabad aan ku soo qancinnay meelaha kale gogashii nabadda waxay taallaa haddii ilaahay yidhaahdo ku soo qancinno ka furnay gellinsoor waxaan ognahay dadka wada deggan deegaannadan degmada dhabbad iyo gellinsoor iyo degmooyinka kale waa dad walaal ah oo xidid iyo xigaal ah oo wada taal ah oo wax wada leh waxaan idiin caddaynaynaa galmudug la wada leeyahay aan la kala xigin inay galmudugtaa idiin noqoto wixii tabashooyinka iyo dhacdooyinkii jiray iyo wixii la soo maray gogolina waa ka taal odayaasha iyo waxgaradkan haddaan si arkayna insha allah muddo aan dheerayn waa la wada degayaa farriimo badan baan sidaan sheegay aan hayaa hadday tahay dhaxal awoowe iyo hadday tahay dhaxal eeddoba waa la wada qaadanaya annagaa hor kacayna annagaa soconayna annagaa tegayna meel walbana amni iyo ciidan iyo deegaan isku mid aha lagu degayaa waxaan rabnaa waxyaabo yaryaraa oo deegaannadan ka jiri jiray oo la soo maray inay noqdaan war xumow laguwaa haddii laa yidhaahdo reer degmada dhabbad mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahad celinaynaa allah idin sharfo soo dhowaynta aanan hilmaamayn oo maantay dad badani aan dareemayo inaysan rabin in sidaa nabad iyo wanaag iyo sharaf la isugu yimaado waxaan rabinna waxaan leennahay xaqa iyo wanaagga iyo sharafka allah idin tuso waa mahadsantihiin reer dhabbadeed waa idinla joognaa odayaasha iyo waxgaradka mudanuhu waxa uu haatanna u soo kicitimay degmada caabudwaaq ee ah degmadii tacliinta iyo sidoo kaleeto soo dhoweynta dowlad goboleedka galmudug waxaana mar kaleeto ku soo dhoweeyey cali daahir ciid madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug sida sharafta la iskugu soo baxay oo muddada dheer ay u sugayeen madaxweynuhu sharaf iyo karaamaad mudantihiin degmada caabudwaaq waa degmadii waa hoygii dhaqanka iyo tacliinta galmudug waa degmo soo dhoweynta caanku ah xaqiiqdii waana degmo u baahan in dowladda galmudug ay garab istaagto waa degmo ka mid a canshuur bixiyayaasha degmooyinka canshuur bixiyayaasha galmudug waxaa si toosa uga shaqeeya dhammaan maamulkii iyo ciidamadii kala duwanaa oo turbitaaliyada ay qayb ka ahay intaasoo dhan waxay idin siinaysaa xuquuq aad ku heshaan in mashaariicda galmudug ka socda aad qaybtiina ka heshaan mar labaad iyo mar saddexaad aan idiin mahadcelinayaa sidaas kugu soo baxdeen khudbad dheer meeshaan igama bannaana madaxweyneheenna ku soo dhaweynayaa waana mahadsantiin madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada xildhibaanada siyaasiyiinta salaadiinta dhaqanka culamaa'udiinka dhallinyarada gabdhaha dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ciidamada qalabka sida saxaafadda dhammaantiin sida looga soo qayb galay munaasabaddan aadka u weyn ayaan idinku salaamay salaan ka bacdi reer caabudwaaq waxaan uga mahad celinaynaa sida aadka u diiran sharafta badan quruxda badana noo soo dhowayseen aad iyo aad baan idinkugu mahad celinaynaa runtii waxaan ogahay inaad saaka istaagteen oo cadceedda intaa la taagnaa hadda reer caabudwaaq waa lagu yaqaana soo dhowaynta dowladnimada iyo taageeradeeda caabudwaaq waa meel dowladeed waa magaalo dowladeed waa magaalo ganacsi waa magaalo lagu yaqaano dhaqdhaqaaqa iyo xadaaradda runtii waxayna gelisay qiiro gaar ah markaan caabudwaaq soo gaarnay intaas kadib reer caabudwaaq waxaan idinkugu nimid socdaalkii nabadda iyo wadatashiga iyo xoogaal u noqoshada xaaladaha galmudug oon ku maraynay galmudug
meelihii noogu muhiimsanaa oo runtii aan si gaara u danaynaynay bay ka mid tahay Cabudwaaq. wadatashigii iyo xoogaalo noqoshadii iyo nabaddii annagoo og inay deegaanadaani nabad yihiin ka qayb qaadashada guud ahaan nabadda Galmudug waa u fariisanaynaa waa ka tashanaynaa waa iska wareysanaynaa insha Allah. sidoo kale waxaan ognahay magaalooyinka tusaalaha u ah dhinaca dawladnimada Galmudug waxaa ka mid ah Cabudwaaq ugu horeysa. walaalayaal mudanayaal iyo marweyn annagoo og waqti dheer la taagnaa marba markaan dheereeyo Cabudwaaq niimaday leedahay baan siinaynaa mudnaantay leedahay baan siinaynaa Galmudug meeshay waxaan naqaanaa ugu jirto sida meeshaas baan kaga talagalaynaa insha Allah. annaga waxaan raahnaa markaan meelaha joogno dadka aan la hadlayno waxaan raahnaa Cabudwaaq ma annaga ka dhigna cadan yarta loo dhoofo. waayeelkii ayaa waxaa mar kaleeto degmada Cabudwaaq ee dowlad goboleedka Galmudug waxa ugu dhalatay bishii wadaniyada xorriyadda iyo sidoo kaleeto isjacaylka ee Luuliyo waxa uu shacabka degmada Cabudwaaq kala qayb galay fantasiyaha dabaaldega maalinta xorriyadda gobolada Koonfureed ee Soomaaliya iyo midowgii labada gobol ee waqooyiga iyo sidoo kaleeto koonfurta Soomaaliya waxa uu amar ku bixiyay in dowlad goboleedka Galmudug aanan meel kale lagu qaban karin dabaaldegaasi. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka golaha wasiirada xildhibaanada mas-uuliyiinta kale ka soo qayb gashay dhallinyarada qaybahooda kala duwan dhammaan bulshaweynta ka soo qayb gashay munaasabadan qaaliga caawa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waa habeen runtii ku weyn geyiga Soomaaliya. habeenkaas taariikhiga ah oo aan lixdan guuradii ka soo wareegtay xornimadii gobolada Koonfureed iyo midowgii ama israacii labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur ka soo wareegtay anigoo ku hadlaya magacayga magaca xukuumadda Galmudug magaca shacabweynaha reer Galmudug waxaan leeyahay meel la joogaba hambaliyo hambaliyo hambaliyo. runtii waa habeen qof kasta oo Soomaaliya meel uu joogaba ku leh xasuus gaar ah ka turjumaya sharafteenna iyo karaamadeenna haddaan nahay Soomaali. وهبين تاريخية دلنيرو صوماليات قبلو إيوهيل صوماليات يوسو هالجمين حرنمادا إيا شرفك عن حسن إنو عاود وحالينا هاي انتي يوسو هالجنتي انتي دمتي الله أول حريصه وأودنتين وأودا وعمان والله حري والله دبي أنت أسنتي كدبتي إلهي تحريص يا غبرينا أنت نور لو حلنا هاي وهم أسنتين شرفتي يا كرامتي يا حرمتي مدى الصومالية قيمتها كسوقاتين waxay tahay sababta habeenkan lagu soo celiyo inay ummadda Soomaaliyeed kala dhaxasho taariikhda dahabka ah ee soo martay ama ay ku heleen sharaftooda iyo karaamadooda oo jiilalku kala dhaxlaan oo ay la socdaan taariikhdooda iyo xornimadooda iyo qiimaha ay leedahay.
Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxa uu ku nuxnuuxsaday kaalinta dhalinyarada Galmudug asaga oo ugu baaqay in ay iminka iska ridaan reeryada gumaysiga argagixisada iyo sidoo kaleeto amni darrada si la mid ah ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay in reer Galmudug dhinac kasta ay ka midoobeen isla mar ahaantaana ay iminka diyaar u yihiin in ay mideeyaan Soomaali weyn oo idil dadka reer Galmudug xornimo doonka iyo taariikhdaas Soomaali looga qaaday gumaystihii oo lagu xoroobay waxay kaga jireen safka hore waxaana reer Galmudug ka soo jeeda geesiyaal taariikh aan duugoobayn ku leh Soomaaliya oo aan qof Soomaali ilaawo karim ka soo jeeda sidaa darteed reer Galmudug midnimada wadajirka iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed xil gaar ah ka saaran waxaan rabnaa inuu xilkaasi ka muuqdo waaba ka muuqdaa anigoo uga faa'iideysanaya fursaddan dadka reer Galmudug sida ay ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo sharafkeedu u dhowran yahay ama ay tahay in loo ilaaliyo horta iyaga muujiyay oo midnimadooda iyo wadajirkooda reer Galmudug muujiyay iyadoo marar badan la isweydiinayo Galmudug waxa ka jira wax unsi ka yihiin oo kala qaybsanaan baa ka jirta dhinac walba Galmudug waa ka madowday waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan haddana u taagannahay midnimadii iyo sharafkii 60kii kowdii Luulyo Soomaaliya heshay wixii soo gaaray oo kala qaybsanaan ama kala tabasho ah haddaan reer Galmudug waxaan ka qaadanaynaa qayb libaax sidaan shalayba xornimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed ugu horeynay haddana waxaan ugu hormaraynaa annagoo teen xallisanay inaan tan kalena u hormarno insha Allah sidoo kale waxaan rabnaa inaan ugu hormarno ummadda Soomaaliyeed iska xoreynta cadowga argagixisada ummadda Soomaaliyeed ku salladan kuwa ugu horeeya ee iska fujiyaan noqono anagu Soomaalina aan tusaale ugu noqono sidaan tusaalaba ugu ahaa jirnay sidoo kale waxaan rabnaa wixii midnimada iyo sharafka 60ka sano laga soo wareegatay dhaawacaya oo jira oo Soomaali dhexdeeda ka jira waxaan leenahay midnima sharaf noole midnima ku sharafownay aan midowno wixii tabashaan xallisano walaalo Soomaaliyeed ayaa midnimada iyada wax ka qaba kuwa dhexdooda wax ka jiraan wali dhammaan waxaan leenahay gacanta ugu habboon iyo gogosha ugu habboon ayaan haddana reer Galmudug ka qayb galaynaa aan midowno reer Galmudugna waa ku celinayaa waxaan leeyahay kaalintiinii hormuudnimo kaalintiinii firfircooneed kaalintiinii Soomaali dhexdeeda ka tilmaanaydeen midnimada iyo wadajirka iyo isu soo noqoshada iyo dhammaynta khilaafaadka jira oo dhan hormuud u noqda insha Allah mar labaad waxaan leenahay munaasabadda weyn ee caaway aan joogno oo ummadda Soomaaliyeed baal dahaba ugu jirta way isugu hambalyeeynaa waana isku dhiirigelinaynaa inaan xusno oo ku xusno taariikh sax ah halgamayaashii u soo dhintay xornimadaas aan harsanayno inaan ku xusno midnimo iyo sharaf Soomaaliya ay leedahay taas wax u gashay hambalyan leenahay habeenka weyn reer Galmudugna waxaan leenahay u horeeya
u horeeya hawlihii iyo taariikhdii lama ilaawaanka ahayd habeenkan ku fadhiyo insha Allah. mar kale madaxweynaha ugu shacbiyada badan dowlad goboleedka Galmudug soo maray ayaa waxa uu safarkiisii ku gaaray degmadii difaaca iyo daljacaylka ahna dhufayska Itoobiya ay soo marweeday waa Balanbale waxa shacabku si diiran ay ugu soo dhaweeyeen garoonka kubadda cagta ee degmada Balanbale waxa uu uga mahadceliyay hab maamuuska sharfan ee ay ku soo dhaweeyeen shacabkii difaaca iyo daljacaylka ee Balanbale ayaa mar kaleeto waxa ay madaxweynaha iyo sidoo kaleeto wasiirkiisa wasaaradda amniga waxa ay ku wareejiyeen ciidan iyo sidoo kaleeto gaadiid hab qabiil loo adeegsan jiray is ogolaaday inay iminka ka go'an tahay in ay Galmudug ka horeeyaan argagixisada bariga Afrika ee ugus waxaanu ku soo dhawaanaynaa tiknikadan oo aan tiknika qabiil ah haatan aan rabnaa inaan ku wareejino Galmudug halganka Soomaalida iyo dib u xoreynta iyo midnimada inay ka qayb gasho waxa way ku soo dhawaada ciidankii iyo tiknikadiiba waynu ku soo wareejinaynaa processkii iyo qorshihii socday oo ilaa ay ka soo bilowday gaalkacyo ilaa Hobyo oo ahaa in asaasidii inay u noqdaan bilow moogtahay daraawiishta Galmudug wasiirka amniga gudaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay maalmaha soo socdo in la asteyn doono xiriyaha ciidamada daraawiishta deegaanadan lagu tababari doono ayadoo arintan ay qayb ka noqon doonto xasilinta iyo nabadeynta deegaanadan waxaa jirta xirooyin kale oo ereyadan aan ka samayn doono maalmaha soo socda oo ciidankani uu bilow u noqon doono ciidamadan maanta waxa wareejiyay gaadiidkan waa beesha Reesiyad ee Balanbale ereyadan degta runtii waxay bilow u noqdeen waqooyiga Galgaduud dhulka la yiraahdo ciidamadii ka xaroon lahaa ayay bilow u noqdeen waana ku macsan yihiin waxaan rajaynaynaa bilowgaas in ciidamada kale oo ereyadan joogay gaadiidka kale oo ereyadan joogo dhan inay iyaguna maalmaha soo socda ay sidaan oo kale wareejintooda aan uga qayb galno madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa beeshan uga mahadceliyay wareejinta ciidamada farxad ay noo tahay in ciidamada darwiishta Galmudug diiwaangelintooda ay waqooyiga Galgaduud ka bilaabato gobolka Mudug shaqo fiican baa laga soo qabtay haddana Galgaduud baa mataqaanaa meel fiican noo maraysa Cadaado meel fiican bay maraysaa Gurceel waa ku sii soconaa Balanbale waatana marka aad baan reer Balanbale idinkaga mahadcelinaynaa hawshan aad noo bilowdeen Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhankiisa madashan kalmado kooban ka jeediyay waxay ahayd siyaasadda cusub ee Galmudug cusub in hubka ay beeluhu haystaan oo sida gaarka u isticmaalayeen oo in badan amniga qatar ku ahaa siyaasaddii iyo go'aankii laga qaatay loo hoggaansamay lagu dhaqmay meelo badanna la soo wareejiyey hubkii galabtana aan beel ka mida beelaha reer Galmudug ay wareejisay hubkii ay gacanta ku haysay waxay noo tahay guul laga gaaray istiraatiijiyadii iyo qorshihii Galmudug cusub waa u mahadcelinaynaa beesha waxaan rabnaa ciidamadan sharafta badan dhalinyaradan runtii shaqooyinka beelaha ku kala dhex jirtay inay tababartaan discibliin iyo nidaam ciidan qaataan hubkoodana ay amniga ugu adeegaan Galmudug meeshii ay qayb ahaayeen berri ayagoo ciidan ah darajo leh xuquuq leh tababaran ayay Galmudug amnigeeda si guud uga qayb galayaan ka shaqeynayaan insha Allah Maxamed Cabdi Jalaqsan wararka TV-ga CW degmada Cabudwaaq